kulan wacan akhyaartana daawataa meel walba oo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan janaal kale waaye films oo haddana kale kuusoo gudbiya maqaale la xiriira arrimaha bollywoodka iyo kuwa adduunka ku saabsanba. haddaba maqaalkana maanta waxaan kusoo qaadanaynaa gabdhaha ugu qurxoon adduunka ee sanadan 2020 oo aan maqaal idinkaga hayno. waxayna gabdhahan u badan yihiin jalayaal, heesayaal iyo gabdho model ah oo adduunka caanka ah. liiskan gabdhaha ku jira ayaa waxaa lagu xushay codad la sameeyay iyagoo laga soo saaray liiskan gabdha ahaan oo u badan kuwa Hollywoodka ka xamaasha. anu dhaadhacano haddaba gabdhaha ugu qurxoon adduunka sanadan 2020 oo aan hoos idinku soo bandhigi doono. haddaba qabta koowaad waa Selena Gomez, waa heesaa Mareykan oo caanka ah ku darso waa jilaa iyo qora, waxayna liiskan ku jirtaa muddo fog ilaa markii ay saaxiib la ahayd Justin Bieber. qofka labaad waa Emma Watson, waa jilaa reer British, waxayna kusoo caan baxday taxanaha Harry Potter series, waana mid ka mid ah haweenka ugu qurxoon adduunka. qofka saddexaad liiskan waa Alexandra Daddario, waa jilaa American ah, waxayna jirtaa 34 jir, waxayna kusoo caan baxday doorka Annabeth Jess ee taxanaha uu leeyahay Percy Jackson. qofka afraad waa Duki Dot, waa gabar model ah oo u dhalatay Australia, waxaana quruxdeeda lagu aqoonsaday New York, waxayna markeeda ugu horeysay 2018 ka soo muuqatay Victoria's Secret Fashion Show. qofka shanaad liiskan waa Aishwarya Rai Bachchan, waa jilaa caanka Hindiya, waxayna quruxda adduunka ku guuleystay 1994, waana mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan Hindiya iyo adduunka oo dhan. qofka lixaad liiskan waa Deepika Padukone, waa jilaa guul u saaxiib ah, waana atirishada ugu mushaarka badan Hindiya, waxaana 2010 lagu soo diray 100 shaqsi ee ugu saameynta badan adduunka. qofka toddobaad liiskan waa Priyanka Chopra, waa jilaa caalami ah, waxayna quruxda adduunka qaadatay sanada 2000, waxayna haysataa abaalmarino kala duwan oo ay ku jirto hal national award ah oo dowladda Hindiya bixiso. qofka sideedaad liiskan waa Fan Bingbing, waxay dhalatay 1981, waana jilaa reer China ah, waxaana lagu xusay liiska 100 qof ee adduunka ugu saameynta badan sanada 2017. qofka sagaalaad waa Janse Swainbill, wuxuu ku dhalatay South Africa, waana qof model ah guulna gaartay, waana mid ka mid ah modelada ka soo muuqday Angles Victoria's Secret Show. qofka ugu dambeeya liiskan waa Taylor Swift, waa heesaa iyo qoraac caan ah, waxayna 7 jeer ku guuleystay Grammy Awards, waana qof guul u saaxiib ah, waana mid ka mid ah gabdhaha ugu qurxoon adduunka. inta aan ku soo xilin warbixinta maanta aan kaga hadlayn gabdhaha ugu qurxoon adduunka 2020. fadlan haddii aad ku cusubtahay janaalkana like inoo saar, sidoo kale share taa naga hilmaamin, iyo inaad subscribe inoo saarto waa janaalka aad soo raacdo. kan kiisi xigana sidaas iyo nabadgelyo.